بسم الله الرحيم. أنا جو IBS بنك ما توحى كسوق قبلني عروض اسمها ودنك أو قبنا يهول كسهل. أس بنكيان وحى كسوق قبلني أنا ضدك كسر عدو قيبتها فاينانسية. ما دام بنكيان وصلنا فاينانس صلنا لنا كونستراكشن كأمريل استيت. سيدا وجدان IBS وحمل قلنا تاورد وكلا ضدك لو لسه وكلا ومال قلنا سيدا كلا وحجر مشروعية IBS وقعنت كوها أو اسمها ودنك سيهر مركب ودنك كرلا وقاض وحكم إذا مشروع وين لو يقال سفاري فيليجز أو مجال حافظة كبحسن وIBS اللي سيسو سيدا كلا وحكم إذا حافظ كلا عصب إلى جزيرة بروبرتس أو معناها صين قلقة أو IBS أيضا قديش مركب بنجيان ما تعرض وحقوق معني إن ضدك ما دام شركة كونستراكشن كنا كسوق قيب جلان أنا جنا ضدك إيمانا يا برشلونة الصومالية أنا كعاونو قيبتها فاينانسية أسوأ بروجكتي إنه أو ريل استيت كنا أقصى بنقولنا عروضا ما أنت هذا وفرح سنة عروض هذا قيمة بدن وايد dadka ka soo qayb gal wujuud waxa laga dhahaana wadankiina horumar iyo ku talaabsana dibdhis sidoo kale sanadkan 2018 waxa Soomaalida leeyahay waa sanadkii horumarka ama sanadkii dhismaha wadanka waxa la rajaynayaa mashruucyo badan oo kamid yihiin jeedada waaweyn oo magaalada ka baxna dhiso IBS mar walba waxay qayb ka qaadan doontaa dhismaha wadanka iyo koob u qaadida qurxinta wadanka guud ahaan Soomaaliya waxaan soo booqday maantay bandhigan aad ka u quruxda badan wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaan dareemayaa horumarka wadankeena oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gaarsiiyay waxaan kale aad ugu faraxsanahay in aan wadanka hadda dib ugu soo noqday aniga oo ka tagay waqti hore aanan isdahaynin Soomaaliya horumarkaana gaartay laakiin mar walba qalbigayga aniga waxa ku jirtay alxamdulillah waa wadankaagii iska aad laakiin wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay carwadan bandhigan quruxda badan oo nooc walba leh waxa ma hadda Ilaahay ba iskala inuu keenay thumma waxa keenay oo iisoo tilmaamay wiilkayga Cabdulqaadir ah Ilaahay khayr badan ha sii asaga yiri hooy halkaas waxa ka jira carwo bandhig maaragtay oo ganacsatada ku soo bandhigaysa iisoo fiiriya marka waan ku faraxsanahay waxaan soo siyaartay meelo badan oo hadda ay ka mid tahay IBS aan aad iyo aad ugu farxay asagoo bangi ah private ah horumarka uu gaaray iyo khidmooyinka uu u fidiyay mujtamaca maaragtay Soomaalida ah waxaanan aad ugu faraxsanahay maanta dhalinyaradeena inay wax badan fahmeen in ay maaragtay isku dayayaan wax soo saarka wadankooda inay ka qayb qaataan waana mahad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala